maanta waxaa halkan isugu yimid golaha abwaanada Soomaaliyeed sababtay u yimideenna waa marka koobaad Allah u naxariisay walaalkeen Axmed Ismaaciil Xuseen Xudaydi oo ahay abwaan kamida abwaanada Soomaaliyeed oo sababsaday xanuunka waayahan hadii alla ku rooyay adduunyada wareeriyay ee coronavirus lagu sababay xalayna ku geeriyooday magaalada London waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto waa haliyay ka baxay ummadda Soomaaliyeed waa haliyay ka baxay fanka Soomaaliyeed waa haliyay ka baxay hal abuurka Soomaaliyeed waa haliyay ka baxay hadii alla ku rooyay bahda muusiga gaar ahaan waliba ahay macallinkii hadii alla ku rooyay kabanka marka waxaan leenahay hadii alla ku rooyay waa xibin kamida taariikhda ummadda waqtigiisii dhamaaday ajashii dhamaatana ifka joogi mayso Ilaahay ha u naxariisto bashar waliba waa dhiman balla weeye geeridu qofna baaqamaya alla budiisa u nuur amiin 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 waxa kale oo hadii alla ku rooyay qodobka labaad noo ah dagaalada foosha xun oo wax lagu tilmaamo aan sheegi karin oo ka socda gobolada Soomaaliya meelo badan oo beela Soomaaliyeed dhex maraya Soomaalidu waa dagaalami jirtay hase yeeshee waa foolxumo soo korortay waxa hadda jira dagaaladii hore xataa dagaalka foosha xun muladooxa la dhigi jiray midkaan waa ka sii fog yahay wax lagu sheego lama yaqaan dad la googooyinayo dad la gubayo haddana filan laga duubay marka waa foolxumo aan weligeed la arkin waana la dagaalaa waana la heshiiyaa laakiin dhaqamada hadda socda kuwa laga heshiinayo ma ahan haday sidaa ku sii socdaan sababtoo ah qofka arka ehelkiisii oo ama la gubay ama la googooyinayo filanka laga duubay oo maalin kasta hor yaalo cudadaas weliga calooshiisa kama baxayso marka waxay reebayaan dhaqamada socda taariikh xun iyo hadii alla ku reeyo colaad xun iyo cudad xun ayay reebayaan marka waxaan ka digaynaa in hadii alla ku reeyo la joojiyo falalka foosha xun iyo dagaalada dhex maraya beelaha Soomaaliyeed wax laga faa'iidayo male weligeed ayaa la istiriirayay waxna lagama faa'iidin waxa kale oo soo kordhay laba kasta oo dagaashaada waxay ku leeyihiin dhulkan leeyahay war dhulkan Ilaahay yaale xaqiiqada markii laga hadlana Soomaalidu dhulkan ma balaba Ilaahay rasuulkiisa kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri dhulkii nooleeyaa iskale qof aan beer falan oo guri ka dhisin oo aan hadii alla wax wanaag oo dhulka u sameeyay aysan jirin muxuu ku leeyahay horta waa yaab marka war dhulkan ma lihiin Ilaahay yaa iska leh hal isnabad geliyo intaas ayaan leenahay waa dulla qabyaaladu waa furq iyo daacun waa cadow difaac iyo dugsi aad ka dhigato ka dooxa maatada waa nacab dadnimadii iyo sharafta kala diriro ummadaada kugu dira ruuxan dakana iyo dambi adiga ka gelin soo dil kugu yiraahdo dan gumaysileeyo waa dariiqa loo maro ummadii la dumi rabo waa kaan kara duqowdiyo jahli deegta noo suran waa durbaan ibliis oo daacadaad u tahay oo aad ka dabahbalaysaa ummadda ila dirisana nabadda waa u diidaa damiirka waa ka qaadaa diinta waa ka saartaa qaranka waa ka dumisaa calanka waa ka diirtaa aakhirana dabnaariyo jahanabay ku dalaqsin waa mahadsantii